Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waa aniga Xudayfa Xaajiya channelka daawanisana waa Xudayfa Vlogs. Kusoo dhawaada channelkeena. Fadlan haddaad channelka ku cusub tahay subscribe noo saar, videoga haddaad ka heshidna like noo saar. Waad mahadsantihiin saaxiibayaal. Caawa waxaan noo wadaa qiso la magac baxday Waraabo Dharle. Waa qiso taxana noqon doonta insha Allah. Waraabo Dharle markaad maqashay waan ogahay inaad aad u la yaabtay, balse ha yaabin. Waa qiso aan rabo inay wiilasha Soomaaliyeed cashir ka bartaan, hablaha Soomaaliyeedna digniin ay u noqoto. Daawasho wacan. nabarada qaar uu jacayl kugu reebaya waxaa laga yaabaa inay kugu noqdaan uur ku taallo aan ka goyn qalbigaaga. Waxaan caawa idiin wadaa qiso ay nala wadaagtay gabadh ka mid a gabdhaha ku xidhan channelkeenan. Waxay tiri gabadhani waxaan rabaa inaan tusaale u noqdo hablaha Soomaaliyeed isla markaana digniin ahaan ay ugu haystaan qalbigooda qisadaydan xanuunka badan. Waxay ahayd ardayad dugsi sare waqtigaasuun bilaabaysay. Aad ay u jeclayd inay waxbarashada heer ka gaadho. Waxay ku noolayd magaalada Muqdisho. waxaana jiray wiil ay jaar ahaayeen amba deris ahaayeen isla markaana ku noolaa xaafaday kaga noolayd magaalada. Aqoon gaara iskumay lahayn, balse si guud ayaa la isku yaqaanay maadaama uu deris lahaa. Gabadhan waxaa laga helaa laba goobood oo keliya, waa goobta waxbarashada iyo gurigooda. wiilkanina aad ayuu ula tacajabay gabadhan oo aad ayuu uga helay, way soo jiidatay. wuxuu aad iskuga howlay sidii uu ula xidhiidhi lahaa gabadhan. wuxuuse soo ogaaday in ay jirto gabadh habaryar markaas u ahayd iyada oo ay isku qol seexdaan. nambarka gabadha habaryarta u ah ayuu soo raadiyey qoftan uu aadka uga helay. wuu soo wacay gabadhii, wuxuuna u sheegay inuu aad uga helay gabadhan habaryarta ay u tahay. wuxuuna ugu reebay fariin in ay ugu sheegto in uu aad uga helay uu jeclaaday gabadhan. gabadhii habaryarteed way u sheegtay, wayna u gudbisay fariintii. gabadhiina way aqbashay. waa la yaab. sababtuna waxa weeyaan waxay tiri wiilkan dushaas ayaan ka arki jiray, wuxuuna iila muuqday wiil akhyaara, waanan soo dhaweeyey. intaas kadib waxaad si toos ugu bilowday xidhiidhkoodii khaaska ahaa. qalbigeeda ayuu si fudud u hantiyey. xitaa waxaa gashay rajo mustaqbal oo aanay isaga hortii xataa ku riyoonin. waxaasoo kalsooniya waxay u siisay maadaama uu dhanka habaryarteed ka soo maray. xitaa wuxuu u sheegi jiray mar walba in ay soo jiidatay akhlaaqdeeda iyo aamusnaanteedu. aad iyo aad ayaan ula dhacay, hadallo midba midka kale uu ka macaan yahay ayuu i dhihi jiray. wuxuu aada uga baqayay in wiil faamilkaa laygu daro. wuxuuna ii sheegay in uu aabbo inuu u taga rabo oo uu ku yidhaahdo, aabbo aniga ayay ii joogtaa gabadhani intay waxbarashada ka dhammaynayso. waaw, hadalkaasi aad ayuu ii soo jiitay. maalinkuu hadalkaasi yirina kalsooni zaa'id ah iyo jacayl zaa'id ah ayaan usii qaaday, balse waxaan u sheegay inuu aniga igu kalsoonaado oo ayna dhici doonin arrintaasi. xiriirkeenna si caadi ayuu u socday, wax waliba si toosan ayay u socdeen. wuxuu ii noqday bay tiri daweeye, codkiisa oo keliya ayaan ku seexan jiray. habeen habeenada ka mid ah ayuu sidii caadadahayd isoo wacay, wuxuuna iga codsaday kulankeenna xigi doona in aan hab siiyo oon laabta isgelin doono. arrintaasi aniga way igu cusbayd, waanan ka diiday. waxaan u sheegay inaanan samayn karin ayay tiri gabadhii. waqtigaas qiyaastii wuxuu socday xiriirkeennu bay tiri 5 bilood. maadaama waan ka diiday codsigiisii, waxaan ka dareemay isbeddel oo wuxuu iga goostay wicitaankii badnaa. anna codkiisa waan jeclaa oo waan ku seexan jiray ayay tiri gabadhii. wuxuu ogaaday inaanan ka ahaan karin oo xaggiisa aan u batay. waxay nafteyda igu khasabtay inaan ogolaado codsigiisii. waxaan ku yidhi waan kuu samaynayaa, laakiin hal mid iga ballanqaad inaanad mar dambe igu soo xadgudbi doonin. haye ayuu yidhi. arrintan waxaan ugu sameeyey keliya si aan u ilaaliyo xiriirkaygu si aan u burburin. maalin ayaan ka codsaday inaan gurigayga ku casuumo, wuuse iga diiday. wuxuuna ii sheegay inaanu rabin in xidhiidhkeenna la ogaado oo uu public noqdo. wuxuu iigu daray hadalka haddii aan rabo inaan la kulmo inaan gurigiisa ugu tago, amba waqtiyada ay magaaladu faraaqada tahay ay dadku kala xaroodaan inaan kulanno. hadalkaas qalbijab ayaan ka qaaday, balse naf wax jecel dooq saas u badan ma lahayn. haye ayaan ku idhi. jacaylkaygii ugu horreeyey iyo daacadnimo ayaa isugu kay biiray. habeen ayaa waxaan ugu tegay gurigiisa, wuxuuna isku dayay inuu wax khaldan igu sameeyo. waan diiday oo waxaan uga soo cararay xagga xaafadeenna. waxoogaa yar markaan nastay ayaan ku celiyey oo waan wacay, balse uu iga qaban waayay. xisaab la-aan ayaan ugu celcelinayay. wuu diiday inuu qabto. naxariis daranaa. wuxuu ii soo diray fariin. wuxuu ii soo qoray, fadlan ima jeclide iga daa wicitaanka,
waxaa ii bilaabantay nolol wada warwar ah. cunto igama degayso, hurdo hadalkeed badaa, oo codkii aan ku seexan jiray wuu iga go-ay. iskuulkii aan aadka u jeclaa waxba kama soo fahmo. fasalka markaan dhex fadhiisto qalbigaygu waa maqan yahay. waxaan kasoo bixi jiray kalaaska anigoo buuq badan igu furan yahay. waxaan go-aansaday inaan habaryar arrinta usoo bandhigo. waxaan ku iri, qofkii wanaagsanaa ee aad bartay uu kaa isbedelee, waxaan kaa codsanayaa inaad iga soo maslaxdo. waxaan aaminsanaa inuu habaryar qadarin doono maadaama uu wejigeeda igu bartay. marka hore waxay igula talisay inaan iska dhaafo qofkan. waxay igu tiri, qofkan uma muuqdo qof rajo mustaqbalkaa leh. haddii uu dhab kuu jecel yahay sidaan dhan kuumuu rafaadiyeen. habaday waxoogaa way iga weyneyd, wayna iga waaya aragsanayd, balse hadalkeedaasi wuxuu iila muuqday mid aanan qalbigayga ku soconin waqtigaas. daawade, Salma ma qaadan doontaa talada habaryarteed mise way baal mari doontaa? waxaa bartahay noogu eeg qaybtii koowaad ee qisadeenii la magac baxday Waraabo Dharle. la soco qaybta xigta insha allah.